maxay tahay sirta ka dambayso dagaalka ka dhaxeeyo Caliyare Cali iyo Jenaraal Mascuud Maxamed Warsame warbixin kooban oo arimahani qaada dhigayso ayaan daawadayaal idinkaga diyaarinay waxaan si idin xasuusinayaa muuqaalkan ee like gareysaan qaybta comments-kana aad fikirkiina inoogu reebtaan warbixintan aad sii share gareysaan adinkoo maadsan Caliyare Cali oo lagu yaqaano kala shaandhaynta iyo kala ququbka beesha uu asagu ka dhashay ee reer Anyaan Lacayr ayaa weerar qaawan ku soo qaaday taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 21aad ee gobolada dhexe ee Soomaaliya Jenaraal Mascuud Maxamed Warsame oo jufa ahaan aanan asaga xigin Caliyare ayaa jananka kursigiisa u doonay wiil xisaabiye ka jaadka hareeriga ee Itoobiya laga keeno waana aan ka gaabsanay xusida magaciisa in ka badan 4 jeer ayuu tagay Caliyare wasaaradda gaashaandhigga si uu arrinkaasi u soo dhameeyo laakiin taliye Odawa ayaa cadaadis badan kala kulmay xafiiska ra'iisul wasaaraha taasoo uu ra'iisul wasaaraha u sheegay Odawa inuu jananka muhiim u yahay geedi socodka Galmudug sababta Caliyare uu daba dhigtay jananka waxa ay tahay maadaama Jenaraal Mascuud uu saameyn ku leeyahay doorashada kursiga Hob 147 mas'uulna uu isagu ka yahay sugidda amniga doorashooyinka ee Galmudug cadaadiska iyo rabitaanka Caliyare ee ah in la bedelo jananka laguna bedelo shakhsi aan ehel iyo sidoo kale khibrad aan u lahayn ciidanimada ayuu Caliyare u garaacay albaab walba ee arrinkan u suura gelin kara balse arrintaasi ayaa suurtagali weysay kadib markii madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor uu aada ula dhacay waxqabadka muuqda ee jananku ka wada Galmudug Mahad Salaad iyo jananku waxay isugu tageen hadda ka hor Turkiga xilli uu madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor uu ku sugnaa dalka Turkiga waxayna isla biyo dhigeen in arrinkan loo gudbiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo qiray inaysan ka maarmin Jenaraal Mascuud Maxamed Warsame Galmudug ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku cadaadiyay Caliyare inuu faraha kala baxo arrimaha ciidanimada ama uu xilka ku weyn doono madaxtooyada Soomaaliya ayaa Caliyare Cali ku wargelisay inuusan maskax ahaan fiyoobayn kadib markii ay la yaabeen ficilada qaabta daran ee sida fudud fulintooda uu ku doonayo booskiisana la geyn doono Cabdicasiis Ashkir oo ah nin degan kana soo jeeda beelweynta Habargidir gaar ahaan beesha Cayr duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday Jenaraal Mascuud Maxamed Warsame kuma eka oo kaliya Caliyare ee waxa ku jira daaha gadaashiisana ka maamulaya shakhsiyaad fara badan oo uu ka mid yahay macallin dugsi oo isku bedelay askari lagu magacaabo Xerow Caliyare Cali ayaa dhowr jeer wacay Jenaraal Mascuud si uu uga raali geliyo wixii uu ku sameeyay balse jananka ayaana ka jawaabin wicitaanadiisa Caliyare Cali ayaa gatay 2 cabdi bila ah oo gaadi dagaal ah wuxuuna geystay deegaanka Garijir oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya isagoo wiilal ku jufa ah qoryo u saaray gawaaridaasi wuxuuna abuuray xasarad jifooyinka Anyaan Lacayr dhexdooda ah oo ilaa iyo hadda taagan sidoo kale Caliyare Cali ayaa u taagan kala qoqobka iyo kala irdhaynta beesha Cayr gaar ahaan reer Ayaanle waxaana uu beegsanayaa dhalinyarada beeshooda kuwooda ugu firfircoon isagoo ka soo wada eriyay xarumaha dawladda ee ay ka shaqeynayeen waxa uuna sabab uga dhigay eriyada dhalinyaradaasi inaysan taageersaneen lana dhacsanayn musharaxnimadiisa shakhsiga sidaasi u galayo dadka uu rabo inay kursiga xildhibaannimo siiyaan kuna matalo ayaga iyo wax u taraya daawade fikirkaaga waad inoo reebi kartaa warbixintaana sii share gare